waxaan filayaa in inteena badan ay maskaxdeena ku soo dhacday sida ay dowlad ku noqon karto dowlad weyn oo saameyn xooggan oo xagga dhaqaalaha ah, xagga militariga iyo siyaasadda leh. Laakiin waxa isweydiin mudan waa maxay arrimaha keensanaya in ay dowladdu noqoto dowlad xooggan oo saameyn dhanka dhaqaalaha iyo militariga iyo siyaasadda leh ay noqoto. Iyo tillaabooyinka ay muhiimka tahay in ay dowladdaasi qaado haddii ay doonayso inay dowlad noocaas ah inay noqoto. Waxaa jira arrimo muhiim ah ama qodobo aasaas u ah in ay dowladdu ay noqoto dowlad weyn ama dowlad saameyn ku leh caalamka ama wadamada u dhow oo kale. Qodobka ugu horeeya waxa weeye marka hore waa in ay dowladdu bees ahaan ay iska dhistaa marka hore. Qodobka ugu horeeya waxa weeye laga rabo in ay dowladdu tirtirdho ama ay ka takhaluso musuqmaasuqa. Musuqmaasuqu waa shayga ugu muhiimsan ee muujiya dib u dhaca ku yimaada dalalka. Dowladdu inay takhalluf iyo dib u dhac ku dhaco oo dowladuhu ay ka harto loolankii ay kula jirtay wadamada dariska la ah ama wadamada aynigeeda oo kale ah. Dowladahaas uu ku badan yahay musuqmaasuqu inta badan waxa ay ka haraan saaxaddii horumarka iyo tii tartanka. Marka waxaa la doonayaa dowladdu in ay meesha ka saarto musuqii jiray. Sida ugu saari kordhan waxa weeye in ay dowladdu dhisto hay'adaas oo ku takhasustay ka hortagidda iyo baabi'inta musuqmaasuqa. Hay'adaas oo laga doonayo in ay u shaqeyso sida ugu fiican si ay u dhowrto ama u ilaaliso hantidii bulshada ay lahayd iyo tii qarankaba. Waxaan ogsoonahay in haddii dowladdu ilaalin weydo hantidii qaranka in aysan dowladdaas samayn karin wax horumar ah haddii ay noqoto kaabayaasha dhaqaalaha. Dowladda khasnadeedu maran tahay oo wixii ku soo dhacaba ay dad gaar ah gacanta u gelayaan. Dowladdaasi ma dhisi karto laami, aeroboort, sidoo kale ma dhisi karto dekedo iyo wixii la mid ah. Marka waxaa dowladdaasi laga doonayaa in ay sameyso hay'ad ay dadku ku kalsoon yihiin. Marka hore waa in hay'addu ay kasbataa kalsoonida bulshada. Bulshadu waxyaalaha keena in ay canshuuraha bixin oo kale waxaa keenaya waa in ay dowladdu dadku isan kalsooni ku qabin dowladda. Ay filayaan in ay dowladdu musuq ay ku samayn doonto hantida ay ka qaado. Xataa markuu canshuurta bixinayo waxaa niyadiisa ku jira in lacagtan ay gacan khaldan ay ku dhaceen. Xataa waxaa dhici kara in dad lagu dhibaateeyo markii hub lagu gado in dad kale lagu dhibaateeyo ama isagii lagu dhibaateeyo in ay dowladdu sameyso. Marka waxaa fiican in ay la sameeyo hay'ad kantarooleysa canshuuraha ay dadku bixiyaan meesha ay marayaan. In ay sidoo kale kantaroosho mushaarka qaadanayaan dadka madaxda ah si aysan musuq ugu badan. Madaxweynaha waa in la kantaroolaa lacagtan xagee buu ka helay arrimahaas oo kale. Marka arrinta ugu muhiimsan waxa weeye in laga hortago musuqmaasuqa. Diin ahaan waa ognahay heerka uu gaarsiisan yahay aad u xun inuu yahay. Marka arrintaas waa in laga hortago dowladduna ay sameyso hay'ado lagu kalsoon yahay oo ka hortaga arrimaha musuqmaasuqa. Haddii ay arrintaasi dowladdu ka hortagto musuqmaasuqa ma ay baabi'isaba si dhammaystiran, dowladdaasi waxaan dhihi karnaa waxa ay gaari kartaa himiladeedii horumar. Waxayna la tartami kartaa wadamada ayada la midka ah hadday noqoto kuwa dariska ah iyo kuwa caalamka oo kale. Marka arrinta ugu muhiimsan ee dowladda laga doonayo waxa weeye in ay musuqmaasuqa ay baabi'iso weeye. Qodobka labaad waa in ay dowladdu dhiirigelisaa dadka ajaanibta ah ee doonaya inay maalgashi waddanka ku sameeyaan. Marka hore si ay dowladdu u gaadho horumar waxyaalaha aasaska u ah waxaa ka mid ah in waddankaas la maalgashto, mashaariic cusub lagu soo kordhiyo. Mar walba oo waddanka la maalgashtana waxay aad u fiican tahay ma ay aad saameyn waxtar leh ku yeelanaysaa dadweynihii maadaama ay mashaariicdan la sameynayo oo dadka ajaanibtu sameynayaan ay ka helayaan fursadooyin shaqo. Taasna ay yareynayso shaqo la'aantii waddanka jirtay. In dhalinyartaadii ay mar walba aadaan wadamada kale xooggoodii iyo khibraddoodii ay ka faa'iideystaan dad kale wax aad u fiican ma ahan. Maadaama aad jiilkan aad waqti dheer aad ku soo bixiseen oo dhanka waxbarashadii aad kusoo taageerdeen
caafimaadkii meel walba uu ardaygan uu waxtar ka leeyahay in ay xilligiisa dhallinyarnimada ugu qiimaha badnaa waddan kale uu ku bixiyo waa arrin ay dowladdu ay mataqaanaa ka gaabisay baan oran karnaa. Marka maalgashigan dadka ajaanibta sameynayaan waxa uu fursad u yahay marka hore dhalinyartii aqoonta lahayd kuwaas oo doonayay fursadooyin shaqo in loo abuuro hadhowna ay ka shaqeeyaan kadibna ayagu ay fursadooyin ay la yimaadaan. Maalgashiga la sameynayo ama mashaariicdaas waa inay noqdaan kuwa dhanka warshadaha oo kale. Warshadaha hadday noqdaan kuwa cuntooyinka sameeya oo kale, kuwa catarada ama barfuunada, kuwa dharka oo kale, iyo kuwa qalabka dhismaha. Macna ayu mashruuc uu noqon karaa laakiin mashruucda dhanka dadweynaha ugu fiican baa kuwa loo yaqaanaa. Sidoo kale mashaariicda waxay noqon karaan kuwa dhanka dowladda xagga militariga ama qalabka dagaalka kuwa soo saara ay noqdaan maadaama qalab cusub in la soo saaro oo xagga dagaalka ah inay dowladdu marka hore anfac u leedahay maadaama waxa ugu muhiimsan shaqada ugu muhiimsan ee dowladdu qabatay ay tahay difaaca waddanka. Waa in marka hore ay la tartanto wadamada dariska la ah ama wadamada aynigooda oo kale ah. Sababtoo ah adduunka saa u soo nahay hunguri baa iska jira waddan walba markuu arko in resource badan oo haysatid ilooyin badan oo xagga dhaqaalaha haysatid uu ku soo hunguriyoonayo. Marka waa in ay dowladdu marka qalabka dhanka dagaalka qalabkaas inay iska dhisto haddii ay qalabkaas u batana ay dhoofin kartaba. Marka labada dhinac mashaariicdaas faa'iido ay dowladdu u leeyihiin maadaama ay dowladaha intooda badan ay soo iibsiga qalabka dagaalku uu kharash badan uga baxo. Markaas waxay noqonaysaa dowladdaas inay ka maaranto qalabkii ay soo dhoofsan lahayd oo ay hesho qalab ka raqiisan qalabkii ay soo dhoofsan jirtay. Marka arrintaas muhiim weyn buu u yahay dowladdii. Marka dowladda waxaan dhihi karnaa waa in ay diiradda saadhaa in maalgashi waddanka maalgashi ugu sameyso. Maalgashiga waxyaalaha saaciday waxaa ka mid ah in ay marka hore dowladdu xasiloon tahay oo dowlad xagga siyaasadooda xasiloon tahay inay tahay. Ajaanibtu waxay soo raadsanayaan waddan siyaasad ahaan xasiloon. Haddii marka waddanka siyaasaddiisa xasiloon amnigiisu aan la isku haleyn karin si walba ay noqdaan waddankaas cidna maalgashi ku sameyn maayaan. Marka muhiimadda waxa weeye inay dowladdu waxyaalo walba oo dhiirigelinaya in maalgashi la sameeyo in ay dowladda la timaado sida inay xasiloonida siyaasadda amnigii inay dhisan tahay kaabayaasha dhaqaalaha wax walba inay dowladdu hore isu diyaarisay si ay dowladdu dadka ajaanibta indhahooda u soo jiitaan. Dadka ajaanibtana mar walba dee waxay haystaan dad lacag qalaad bay haystaan. Lacag qalaad oo maalgashi ku sameynayaan ha noqoto doolarka kale ay ku sameeyaan kuwaasna dowladdii waxay intifaac u leedahay in dowladdii lacagtii waddankaas maadaama mashaariic badan lagu sameeyay in ay qiimo yeelato. Marka waxaan dhihi karnaa inay dowladdu dhiirigeliso maalgashi ajaanibta dadka maalgashiga ajaanib doonka maalgashi waxaa la rabaa xagga productionka muhiim u ah wax soo saarka ama rabo xagga markii la sameeyo waxyaalaha aan intifaac badan lahayn in dowladdiisa lagu dhibaateeyo. Marka waxaa la rabaa dowladdu inay xagga wax soo saarkii hadday noqoto bankinskii bankiyada iyo waxaas nidaamka bankiyada oo kale waxaas oo dhan inay dowladdu mataqaanaa dadka maalgashiga u soo bandhigto ama ay dadka maalgashiga ku soo jiidato ayaa loo baahan yahay. Sidoo kale ay siiso ka taageerdo in ay helaan dhulka ay maalgashi ka sameyn lahaayeen. Iyo mar walbana waxa u fiican in ay mataqaanaa dhankaas dowladdu ka taageerdo maadaama dadka maalgashi doonka haddii dhulkii ku habboona ay resource-ga u fiican ay ka heli lahaayeen si ay maalgashi u sameeyaan iyo shaqaale raqiis ah ay ka heli lahaayeen inay dadkaas ku dhiirigelinayaan macna dhiirigelin u noqonayso inay waddankaas maalgashi ka sameeyaan. Qodobka saddexaad sameynta ilooyin tamar koronto ah. Maadaama xilligan aan nool nahay korontadu ama tamarta korontadu ay ka mid tahay waxyaalaha asaaska u ah nolosheenna maxaa noo diidaya in aynu samaysano ilooyin kala duwan oo aan ka dhalin karno koronto. Dowladdu marka waxaa la rabaa in ay sameyso mashaariic kuwaas oo lagu horumarinayo ama lagu sameynayo ilooyin kala duwan oo laga dhalin karo tamarta. Hadday noqoto in ay sameyso in ay korontada ka dhaliso oo kale dabaysha dabiiciga ah Ilaahay uu siiyay in laga dhaliyo oo kale biyaha maadaama uu waddanku uu leeyahay biyo oo kale biyadaas wax loo isticmaali karaa in laga dhaliyo korontada. Sidoo kale waxaa la isticmaali karaa solarahaas oo inta badan kaydiya tamartii. Wadamada waaweyn inta badan waxay raadeen ilooyin kala duwan oo ay ka dhalin karaan tamarta maadaama
dowladda la rabo inay ka kaaftoonto wax walba oo uga bixi jiray oo kharashaadkii badnaa uga bixi jiray in ay betrool ama ay gaas. Qodobka afaraad, sinaanta iyo cadaaladda. Markii la rabo in la eego inta ay dowladdu sii jiri karto, waxyaalaha looga qiyaas qaato waxaa weeye nidaamkeeda cadaaladda. Saan ogsoonnahay waxaa adduunka soo maray dowlado badan, waxaa soo dhacay kacdoono badan ay shucuubta sameeyeen. Arrimahaas waxyaalaha basiska u ahaa waxaa ka mid ah in nidaamkii sinaantii cadaaladda uu meesha ka baxay. Waxay keenaysaa arrintan marka ay nidaamka cadaaladda u burburo in dad ama shucuubtu ay goodiyaan hadhowna kacdoono ay dowladda uga soo horjeedaan ay sameeyaan, sidaas ay dowladda ku burburdho. Marka waxaa la rabaa in hay-adaha ama siyaasadda arrimaha guduhu ay ku dhisnaato mid cadaalad ah si looga fogaado wax walba oo dowladda jiritaankeeda liddi ku ah. Qodobka shanaad, ihtimaamsiinta culuumta cusub. Dowladda waxaa la rabaa in ay la jaanqaado casri walba culuumta soo baxda, maadaama dowladuhu ay ku dhisan yihiin shucuubtaas waxaa la rabaa in ay shucuub ay noqoto shucuub dhanka waxbarashada tayadooda aad u sareyso. Marka waxaa la rabaa dowladdu si ay arrimahaas uga kaaftoonto inay dhisto jaamacado, madaariis, sidoo kale in ay wax ka beddesho nidaamkeeda waxbarashada. Sidoo kale inay sameyso baxthiyo iyo baaritaano lagu horumarinayo nidaamka waxbarashada si loo sameeyo nidaam ama syllabus ardada ka soo baxda ay noqoto ardo tayadooda aad u sareyso. Arrimaha kale ee dowladdu ay ku horumarin karto waxaa ka mid ah in ay dowladdu dhisto maktabooyin tiro badan oo dhanka wax akhriska ah ay sameyso. Sidoo kale ay badiso ijaazooyinka la siinayo ardayda hal abuurada sameeya waxyaalo cusub soo kordhiya hadday noqoto dhanka tiknoolajiyada iyo dhanka sugaanta iyo wixii lamid oo kale ah. Marka arrimahaas haddii ay dowladuhu ay la yimaadaan shanta qodob aan soo sheegnay, waxay waddankaasi u leexin kartaa dhanka horumarka si uu ku noqdo dowlad weyn oo saameyn dhaqaale siyaasad iyo military yeelata.